بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي الكسو دوادا عصب لتي في كنسو دوادا برنامجك محاكا عصب عيارة كبدا عاكتا إنه أنا مانتكو إيجي دورنا كل مدى العيارة أسبوعاً هريالة غارة يوروب سيدو هريالة إنجليزكا كان إسبين كان تاليانيغا جرمالكا إيسيدو كالهريالة كدالك فرانسيسكا نانكو بلاونا هريالة كدالك إنجليزكا كل مدى العيارة سبتيدو حياري كوحدة توتنهام وهاني إبر كوغرا عدي كوحدة وولفيس ولو توتنهام إذا صنبا لغن عيار آد لونج عليسو هاري كين أيان ودالي كوحدة كبدا عاكتا توتنهام جول كتلية أي كوشو كوغارين كان بيدي الدنبي أما قيبتي لبعض عيارتا اللحدن يافر دقيقو مركي أي مريسي سيدو كالي كريستال بالاس أيا سر حرقالي كاقبديسي كوحدة كبدا عاكتا أستون فيلا أيضا كوغرا عدي سدح جول إيو جول كوحدة كبدا عاكتا أستون فيلا أيا جول كتلية داليسي كهرمتا عيارتا شن دقيقو مركي مريسي بلسي كريستال بالاس أيا لبدا كدب تلوضا عيارتا مركي مريسي بريجيسي عيارتا أيضا كدقتي هل يهل كان بيدي دنب عيارتا مركي وصول نقضي كريستال بالاس أيا لبدا جول داليسي ميد كمدا وحوها بنالتي waxaan dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Saha ayaa goolkii labaad dhaliyay 50 daqiiqo markii ciyaartu mareysay Mateta ayaa 21 daqiiqo goolka saddexaad u dhaliyay kooxda Crystal Palace dhanka kale kooxda Everton ayaa baraja hal hal gashay kooxda Nottingham Forest kooxda Nottingham Forest ayaa ku horeysay goolka 81 daqiiqo markii mareysay balse 7 daqiiqo kadib 83 daqiiqo ciyaarta markii mareysay kooxda Everton waxaa goolka u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Gray ciyaarta ayaa ku ilaatay hal iyo hal kooxda Fulham oo qab ciyaareed fiican ku jirta ayaa 3-2 ku garaacday kooxda Brentford ciyaar aad u xiiso badan oo ka dhacday garoonka Fulham sidoo kale Leicester City ayaa gurigeeda lagu garaacay iyadoo Leicester City xaalka sanadkan uu aad u lixin yahay saddex kulan ciyaartay laba kulan waa laga badiyay kulan barbara ayay gashay labiyi hal waxa ku badisay kooxda Southampton Arsenal ciyaartii ugu dambeysay maalinta sabtida dhacaysa ayaa 3-eber kaga badisay kooxda Bournemouth Martin Odegaard ayaa u dhaliyay kooxda Arsenal laba gool qaybta hore ciyaarta halka goolka saddexaad u dhaliyay William Saliba Arsenal ayaa saas kaga adkaatay kooxda Bournemouth iyadoo ku badisay 3 gool iyo waxba sidoo kale kooxda Leeds iyo Chelsea oo kulmay maalintii Axadda Chelsea ayaa laga badiyay 3-eber ciyaar aad u xiiso badan oo kooxda Leeds ay ku gacan sareysay wada Chelsea inta badan ay kubada hadiyada ah ay siisay kooxda Leeds saasna gool loogu dhaliyay 3-eber ciyaarta ku soo ilaatay oo laga badiyay kooxda Chelsea West Ham ayaa ilaa hadda wax guul aysan gaarin horyaalka soo furmay 3 kulan ay ciyaartay waa laga badiyay welina wax gool ma aysan dhalin xil ciyaareedkan 3 kulanba waxa loogu badiyay 2-eber ay ku badisay kooxda Brighton Newcastle United oo dhawaanahan iibsadeen boqortooyada Saudi Arabia ayaa 3-3 barajo la gashay kooxda Man City Newcastle ayaa isku wada dibadhis ayadoo doonaysa sanadaha soo socda inay la tartanto kooxaha waaweyn ee ka dhisan horyaalka dalka Ingiriiska kulanka ayaa ku soo ilaaday 3-3 walow Newcastle goolka laga hormaray kadibna ay barajaysay ciyaarta qaybtii horena lagu kala nastay 2-1 ay ku hogaaminayso kooxda Newcastle kambi dambe Newcastle ayaa 3-1 ka dhigtay ciyaarta walow kooxda Tottenham kooxda yiraahday Man City ay dhashatay labada gool muddo 4 daqiiqo gudaheeda ciyaartana 3-3 ka dhigtay saasna ku soo gabagabowday Man City ayaa taa loo dhigay kulankii saddexaad ee horyaalka Ingiriiska ciyaarto kulanka wixii xisaabnaa ee dhacay maalintii shalay taheed ee Isniinta aheed oo dhaxmaray kooxaha Liverpool iyo kooxda kubadda cagta Man United oo ka dhacay garoonka kooxda kubadda cagta Man United ee Old Trafford Man United ayaa ciyaar cajiib ah soo bandhigtay markii ay keed gelisay labada ciyaartooy waaweyn kooxdaasi ee Harry Maguire oo lacag qaali ugu fadhiyay Cristiano Ronaldo oo kooxda ka qaatay mushaar aad u badan labadaba kursi keedka ay ku soo bilowdeen tababar Erik ten Hag ayaa wuxuu soo bandhigay in uu awood u leeyahay inuu ka tijiriyo ciyaartooyda waaweyn ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Man United ayaa ku adkaatay 2-1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Tottenham walow labada kooxood qaab ciyaareed ay ku jireen maalin ciyaarihi la soo dhaafay labada ciyaarba aysan weli naadi kamid ah labada naadi aysan gool gaarin Liverpool ayaa laba barajo soo gashay Man United ayaa laga badiyay labadii kulan u dambeysay ee horyaalka Ingiriiska balse ciyaarta saddexaad labada kooxood guusha ugu horeysay waxaa helay kooxda Man United oo 2-1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Liverpool Sancho ayaa gool ku dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Man United 16 daqiiqo markii ciyaartu mareysay taas ayaa lagu kala nastay xakaamkii hore ama qaybta hore ee ciyaarta markii la isku soo noqday Man United ayaa goolkii labaad heshay 53 daqiiqo ciyaartu markii mareysay markuu True Pass u dhigay ciyaaryahanka lagu magacaabo Martial Rashford ayaana ku hubsaday goolkii labaad ee kooxda kubadda cagta Man United 9 daqiiqo markii ka saddex ciyaarta waqtiga loogu talagalay 90 daqiiqo
ayaa Salah waxa uu dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool goolka kaliya ay dhaliyeen ciyaarta. Haddaba waa ciyaarihii isbuucan la ciyaaray 10kii kulan ee dhacay horyaalka Ingiriiska 20 kooxood ee horyaalka kooxda Ingiriiska ay ciyaareen. Isbuucan waana wiilkii saddexaad ee horyaalka Ingiriiska la ciyaarayo iyo ciyaarihii saddexaad ee la ciyaaray horyaalka sida uu furmay 38 kulan, 3 kamid ayaa la ciyaaray, waxaa hartay 35 kulan. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa ilaa hadda waxay haystaa rikoorka loo yaqaan 100% rikood ah oo ah kulamadii dhammaan ciyaareen inay badiyeen. 3 kulan Arsenal badisay, 3 kulan waa badisay, weli laga badin, barbardhacna maysan gelin. 9 gool ayaa dhalisay, 2 gool ayaa laga dhaliyay. 9 dhibcood ayaa Arsenal saas ku leedahay. Man City, Leeds United, Tottenham, Brighton, Newcastle and Brighton inta ayaa leh 7 dhibcood. Waa ilaa hadda naadiyada horyaalka Ingiriiska ee halka 7 dhibcood wada leh ay yiraahdeen Tottenham, Brighton, Leeds iyo Man City. sidoo kale Man United ayaa kor soo yara kacday oo ku jirta kaalinta 14aad, walow Chelsea aysan ka fogeyn ku jirta kaalinta 12aad. Chelsea ayaa leh 4 dhibcood, halka Man United ay leedahay 3 dhibcood. Liverpool ilaa hadda aan badin ayaa 2 dhibcood leh, 3 kulan ciyaartay, 2 kamid ah barbardhac, midna waa laga badiyay. sidoo kale kooxda West Ham ayaa xal ku xun yahay, ilaa hadda maysan badin, 0 dhibcood ayay leedahay, waa kooxda kaliya ilaa hadda aan dhibic helin. kooxda Leicester City ayaa 19aad ku jirta, 18aad waxaa ku jira Wolves oo min 1 dhibcood leh. horyaalku waa bilow. taageere maxaa malaynaysaa kaalmaha ugu horeeya ama 6da ugu horeeya wax loo yaqaan top 6ka sidoo noqon doona? naadiga 1 geli doona, 2 ilaa 3 ilaa 4 ilaa 5 ilaa 6 naadiga geli doona, sidoo kale 3 naadiga oo noqon doona heerka labaad ee horyaalka dalka Ingiriiska. waa ciyaarihii horyaalka Ingiriiska la ciyaaray. sidoo kale waxaa la ciyaaray horyaalka Spain. kulamada horyaalka Spain ee la ciyaaray waxaa ka mid ahay kooxda kubadda cagta ee Osasuna ayaa jimcihii ciyaartay 2-0 kaga badisay Cadiz. Mallorca ayaa sidoo kale 2-1 looga badiyay, Real Betis baa kaga badisay. Celta Vigo ayaa gurigeeda ku qaabishay Real Madrid 4-1 ayaa looga badiyay. goolashan waxaa u dhaliyay Benzema oo penalty dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. sidoo kale waxaa bareejiyay ninka la yiraahdo Aspas. qaybtii hore ciyaarta intaysan dhamaanin 41 daqiiqo markii mareysay Madrid ayaa gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Real Madrid. qaybtii labaad ciyaarta Real Madrid ayaa 2 gool heshay 10 daqiiqo gudahood, waxaa u dhaliyay Vinicius Junior iyo sidoo kale Valverde ayaa 2 gool u dhaliyay. ciyaarta ayaa kusoo laabtay 4-1 oo ku badisay kooxda Real Madrid. sidoo kale kulamada la ciyaaray kula taqriibka maalintii Axadda waxaa kamid ah kooxda Valencia ayaa booqatay kooxda Athletic Club oo 1-0 ayaa lagu badiyay Valencia. kulanka kale Athletic Madrid ay gurigeeda kula ciyaartay kooxda Villarreal ayaa 2-0 ku badisay. Barcelona ayaa 4-1 sidoo kale u jeebtay kooxda Real Madrid oo ku badisay 4-1 kaga badisay kooxda Real Sociedad oo martay ahayd. Lewandowski ayaa 2 gool kamid ah ciyaarta dhaliyay. Dembele iyo Ansu Fati ayaa 2 gool kala dhaliyay. sidoo kale kulamada la ciyaaray Isniintii waxaa kamid ahay kooxda kubadda cagta ee Elche ayaa 1-1 baraja la gashay Almeria. Girona ayaa 3-1 kaga badisay kooxda Getafe. haddaynu eegno kala horeynta horyaalka wadanka Spain, walow 2 kulan kaliya la ciyaaray, kooxda Villarreal ayaa 6 dhibcood leh, 5 gool ayayna leedahay. Real Madrid ayaa 6 dhibcood leh. sidoo kale saddexaad waxaa ku jira Real Betis, Osasuna, Barcelona ayaa 5aad ku jirta. weli horyaalku waa bilow, ilaa haddana waxa weeye wax saadaal ah laga bixi karo, walow Real Madrid iyo naadiga Barcelona ay soo bandhigayaan ciyaar aad u wanaagsan. horyaalka dalka Talyaaniga oo la ciyaaray maalintii Sabtida ahaydna kulamada la ciyaaray waxaa kamid ah Torino, Lazio, Braga ay wada galeen. Udinese sidoo kale iyo Salernitana, Braga ayay galeen. sidoo kale Inter Milan 3-1 waxay kaga badisay kooxda Spezia. Sassuolo 1-1 ayay kaga badisay kooxda Lecce. sidoo kale kulamadii Axadda dhacay waxaa kamid ahay kooxda Empoli ayaa 1-1 baraja la gashay Fiorentina. Napoli ayaa 4-1 kaga badisay kooxda Monza. Atlanta ayaa 1-1 baraja la gashay kooxda Milan. sidoo kale Bologna ayaa 1-1 baraja la gashay kooxda Hellas Verona. kulamadii Isniintii dhacayna Roma ayaa 1-1 kaga badisay kooxda Cremonese. sidoo kale Sampdoria ayaa baraja 1-1 la gashay kooxda Juventus. horyaalka Talyaaniga waxaa hoggaan ka haya kooxda Napoli oo 6 dhibcood leh. sidoo kale Inter ayaa 6 dhibcood leh. Roma ayaa 6 dhibcood leh, waa 3 kaalin ugu horeysa. Juventus ayaa kaalinta afraad ku jirta 4 dhibcood leh, kulanna badisay, kulanna barbardhac gashay.
horyaalka ayaa la ciyaaray 2 kulan oo kamid ah kaliya waana inta barnaamijkii ciyaaraha aanu ku eegaynay kulamadii horyaalada qaaradda Yurub ee dhacay isbuucii la soo dhaafay intaana barnaamijkan lamida kulmi doona waxaan idigu dhaafayaa sida ay nabadgelyo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا كما سنت داوشة موقعك فضلا لايك صار فيديو بس أصعب ربنا من جاره سبسكرايب صار جنال كهديات كو أصبت هاي